midaada kale adi isweydii bal keen ibe hadhow marka caloosha ka weynaad inaad buryadaada arki weysid iyo inaad maalintii mataqaana 20 daqiiqo maaragtay raashin subsatid keen ibe adi isweydii walaalkii asxaabta saaxiibkii Maroli Masal waaye minikini waaye soo dhawaada mar koowaad iyo mar labaadba adiga walaashay walaalkii hadda channelkan ku cusub tahay aniga magacaygu waa Cabdinaasir waxaan soo biyaa fiidiyo ku saabsan jirriska iyo raashinka fiidiyoga maanta wuxuu ku saabsan yahay raashinka la cuno marka aad rabtid inaad iscaateysid aniga 3 bilood ka hor waxaan ahaa 97 kiilo haddana waxaan ahay 84 kiilo muddo 3 bilood waxaan iska riday 13 kiilo iyadoo xoogaygu wali sidiisa uu yahay muruq badan oo iga dhicin intoo badnaan miisaanka iga dhacay wuxuu ahaa baruur marka su'aasha isweydiiska mudan waxay tahay maxaan suubiyay marka fiidiyoga waxaan ku sharaxaa waxyaabihii aan suubiyay intii uu processka uu socday fiirso fiidiyowga ilaa dhamaadkiisa waxaa laga yaabaa inaan wax ka faa'iido asxaabta waxa koowaad aan suubiyo waxay tahay waxaan suubiyaa cardio week 2 ilaa 3 jeer aan suubiyaa hurdada markaan kasoo kaco koob kafeeyo madow cabaa markaas kadibna maxay socdaan aadaa sababta maxay ii sheeg mataqaana caloosheeda oo faaruqa mataqaana cardio u suubiyo waxay tahay markuu calooshaada ay faaruq tahay markii noo sanadiiqda jirka energy uu ku keediyo iyagana waa faaruq marka socodka suubinaysa energy-ga jirka uu baahan yahay baruurtu ka soo qaadana saas darteed ay muhiim u tahay mataqaana calooshaada faaruq in la suubiyo cardio hadii suurtagal tahay mideeda kale way cardio loo suubiyo marka la rabo ma aragtay maxay ii sheeg miisaanka in la rido sababta waxay tahay marka cardio suubinaysa kilocalorie badan aad gubaysaa tusaale ahaan marka gymka ku jirtid ma aragtay iyo marka maxay ii sheeg mataqaana cardio suubinaysid waxa kilocalorie badan gubaysaa ama energy badan gubaysaa marka aad cardio suubinayso saas darteed ay muhiim u tahay sababta loo rabana kilocalorie badan in la gubo waxay tahay ma aragtay waxa la rabaa jirka inuu yahay xaalad caloric deficit marka miisaanka hoos u dhacayo markana muhiim waa inaad tahay caloric deficit waxaan ka wada energy ka baxo mataqaana kan ku soo galo waa inuu badan yahay kan ka baxo kan ku soo galo inuu yar yahay markaas kadib ayaa maxay ii sheeg miisaanka hoos u dhaca asxaabta aan hada koobkii kafeeyo madow cabaa markaas kadibna mataqaana gymka aada maanta waxaa rabaa banaanka inaan ku soo lugay laakiin suurtagal ma rooba banaanka ka da'ayo gymka noo balani asxaabta hada gymka waa ka imaaday marka gymka ka imaaday kadib dukaanka soo maray marka hadda waxaan tusinaa waxaan dukaanka ka soo gatay waxaa soo gatay rice cake kalluun waxaa kaloo soo gatay ukun waxaa soo gatay qajaar chicken breast digaaga xabadkiisa waxaa kaloo soo gatay green beans broccoli waxaa kaloo soo gatay yaanyo waxaa kaloo soo gatay ansalato meeshaan qudaar kale aydan ku jirto broccoli karooti waxaasa ku jiraan iyo broccoli kale asxaabta hadda waa dhididsanahay maxay dishay waa qubaysanaa markaa qubaysta kadib waxaan tusinaa saa raashinka maanta uu diyaarsanayo asxaabta mar labaad jikadeeda ku soo dhawaada waa soo qubaystay markaa qubaystay kadib chickenkii aad jarjartay saana u jarjartay gabal yariisaan ka dhigtay marka gabal yar ka dhigtay kadib waxaan sii kululeystaa daawaha markuu ii kululaado kadib dhowr dhibic oo olive oil daawaha ku daraa markaas kadib markino chickenka aan ku daraa ugu saliida daawaha ku dareysay aad u badan tahay markaas kaloriga ugu badana markaas ma ahaanaysid caloric deficit chickenka diyaar ay isii noqonayo markino waxa halkan biyo kulul oo ku heystaa mataqaana broccoli iyo green beans ka halkan ku sii subsanaa waxaa dhan inta diyaar ka noqonaya waxay qaadanaysaa 15 daqiiqo ilaa 20 daqiiqo markuu chickenka wax yar biseelka ugu dhiman yahay ana waxaan isticmaalaa dhadhankan isticmaalaa lidalkan ka soo gatay sida maraq digaag oo kale waay xataa hadda maraq digaag haysato waad isticmaali kartaa isku mid waay
asxaabta maxay soo jeedaan quraacdeeda waa diyaarsaday meeshan waxaa ugu jira 300 gram oo green beans 150 gram oo chicken 20 gram oo mayonnaise meeshan waxaan ku haystaa maxay sheeg 4 xabo oo kuna 2 xabo isqaba iyo 2 xabo ka dufanka jaalaha laga bixiyay sababta maxay sheeg ma taqaan 20 gram oo mayonnaise bis meeshan ugu shubtay waxay tahay sababtoo ay waxaan rabaa inaan ahaado caloric deficit ugu mayonnaise inta rabtid ku shubtid calooshii dabada ka weynaanaysa su-aasha kale isweydiiska mudan waxay tahay mataqaana why green beans hadda cuna ma bariis cuna ama pasta cuna fiiri 100 gram bariiska ma aragtay 100 iyo 350 gram oo kilocalorie ku jiro 100 gram oo green beans kana markino waxa ku jirta 30 gram hadda meeshan 300 gram ay ugu jirto green beans saxankan aad weyn arkaysid kalorigiisana mataqaana waa 90 kilocalorie waay markasto miisaanka hoos u dhimaysto waa inaad tahay caloric deficit energy ka baxo ay kan ku soo galo markino waa inuu badan yahay kan ka baxo kan ku soo galo yar yahay markaas kadib aad caatoobaysaa asxaabta anad quraacda cunaa marka cuna kadib waxaan noo balana meelka labaad asxaabta marka la jikadeeda ku soo dhawaada meelkii koowaad 4 saacadood ka soo wareegtay hadda maxay sheeg waxaan cunaa qajaar ansalato iyo yaanyo iyo 150 gram oo chicken ay ugu jirto sababta hadda mataqaana qajaarka ansalatada iyo ayada cunaay waxay tahay calorie ku jiro uu yar yahay meeshan hadii uu bariis pasta ugu jiri lahaayeen ma aragtay calorie uu badnaa lahaa dhibeen ugu ahaan lahayd inaan ahaado caloric deficit marka ugu mar walba miisaanka la dhimaayo waa jirka inuu ahaado xaalad caloric deficit qaar hadda idinka mid ah waxay isweydiinayaan mataqaana raashin yaa suubin karo yaa cabiri karo maxay sheeg mataqaana dhib waay aaminsan yihiin bal isweydii bal adiga walaalkay walaashay maalintii social media waxa kaaga baxo 4 ilaa 6 saacadood kaaga baxo 20 daqiiqo raashin ku suubsatid naftaada uma haysid miya midaada kale qaar idinka kamid banooni ah fiirsatiin qof shaqaysanaya ma aragtay 2 saacadood waa fiirsanay laakiin adiga naftaada 20 daqiiqo ma haysid miya marka walaalkay beentas iska dhaaf kiskiiskaas iska dhaaf ma aragtay dukaanka tag soo adeego raashinkaaga suubso midaada kale adi isweydii bal keen dhibe hadhow marka caloosha ka weynaad inaad buuriyada arki weysid iyo inaad maalintii mataqaana 20 daqiiqo ma aragtay raashin suubsatid keen dhibe adi isweydii walaalkay ani raashinkayga hadda cunaa marka cuna kadib waxaan oo balana asxaabta meelka saddexaad asxaabta marka la ku soo dhawaada jikadeeda meelka 3 saacadood ka soo wareegtay hadda waxaan tusinaa meelka saddexaad waxa uu ka kooban yahay wuxuu ka kooban yahay whey protein mishaari loos la shiiday iyo hal xabo moose marka hadda waxaan tusinaa anisa u suubsado maybe maxay sheegina wax ka faa'iido laga yaabo ma aragtay meeshan maxay sheeg mataqaana 100 gram oo ku shubana boqol gram oo ku shubtay marka 100 gram ku shubo ma aragtay biyo kulul oo korka uga dara biyo kulul korka marka uga dara kadib ma aragtay waxa gelina microwave ka dhowr daqiiqo gelina hadda diyaar ay noqotay microwave ku aan ka soo baxsaday markaas kadib halkan aan saarana marka halkan saarto waxa halkan ku diyaarsanaa markaas proteinka soo diyaarsanaya hadda idin tusinaa miisaanka ebereberaan geysanaa marka ebereber geysta kadib markii 35 gram meeshan ku shubana 35 gram marka ku shubto ma aragtay wax yariiso caanay markii aan korka uga dara inuu aad u jilco lama rabo markaas kadib qaada halkan ka soo qabsanaa qaadada markaan soo qabsado ma aragtay xoogaa walaaqa marka cabaar walaaqa ma aragtay waxoogaa maxay si fiican iskugu waxeesmo markuu soo noqdo ma aragtay I hope inaa ujeedin kaliya isku duuba wax kasta inaad soo igu adag tahay markuu soo noqdo ma aragtay markaas kadib intaqaana ayaa maxay sheeg mashaarida korka ugu dara mashaarida marka korka ugu daro maxay ii sheeg ma aragtay miisaanka saara miisaanka markaan saaro markaas kadib maxay sheeg looska la shiiday ayaan hadana ku daraa 20 gram ku daraa sababta maxay sheeg mataqaana 20 gram ugu daray waxay tahay looska la shiiday kalorigiisu wuu badan yahay ogow inta rabtada ku darsato calooshii dabada ka weynaanaysa markaas kadibna maxay sheeg mataqaana mooskiga kor ugu darsanaa
xogaa res waa isku walaaqana ma aragtay maxay ii sheeg mataqaana diyaar way markaas ani mealka ugu jeclahay waa mar walba intaan gymka aadin ma aragtay ayaa mealkan cunaa sababta waxay tahay mataqaana hadda mataqaana carbohydrate aan cunayo sababtoo ah saacad kadib waxaan rabaa gymka inaan aado marka ugu muhiim waaye markino calooshaada inuu ku jiro carbohydrate intaadan gymka aadin markino sababtoo markaa gymka joogto ma aragtay maxay ii sheeg energy aad u baahan tahay carbohydrate sidiisaba energy waaye haddii calooshaada u faaruq gymka aad joogto aad tagto ma aragtay trainingkaaga markaas maxay ii sheeg mataqaana mid fiican ma noqonayo si trainingkaaga mid fiican u noqdo carbohydrate cun maxay ii sheeg markaa cuntid kadibna markino saacad 2 saacadood sug inta xogaa ka dhalaalayo markaas kadib aad asxaabta aan hada mealkayga cunaa markaa cuna kadib waxaan oo balana gymka asxaabta soo joogdaan waxaan joogaa xaafadda gymka waa ka imaaday meeshan waxaan ku haystaa mealkii afraad meesha waxaa igu jira 300 gram oo broccoli ah 250 gram oo kalluuna iyo 4 xabo rice cake qasab miya maxay ii sheeg mataqaana 4 meal inuu maya qasab aan waxay ku xiran tahay inta kilocalorie aad cuntay maalinta haddaad rabto 2 jeer ka dhigan kartaa haddaad rabto 3 jeer ka dhigan kartaa saa waqti u hayso mideeda kale qasab miya in la cuno green beans iyo broccoli maya qasab ma aan haddaad Soomaaliya joogto Soomaaliya waxa laga helaa karooto waxa laga helaa barey waxa laga helaa maxay ii koosto isku wala mid waaye isku nafaqo waaye isku kilocalorie waaye marka maxay ii sheeg mataqaana waxa awoodid suubso asxaabta maxay ii sheeg raashinka maanta cunay dhan markino wuxuu ahaa 250 kilocalorie aniga shakhsiyan waxaan u baahanahay 3000 oo kilocalorie 3000 oo kilocalorie marka cuno miisaankeyga korna ma u kacayo hoosna ma aadayo sidiisuu ahaana marka maadaama aan ahay 750 kilocalorie minus saas darteed ayuu hadda miisaankeyga hoos ugu dhacay marka ugu muhiim waaye mataqaana markii aad rabtid inaad miisaankaaga hoos u dhigtid waa inaad tahay caloric deficit marka maxay ii sheeg mataqaana maanta maxay ii sheeg waxaa helay 200 iyo maxay ii sheeg mataqaana 3 gram oo protein ah 130 gram oo carbs iyo 90 gram oo fats raashinka maanta cundan intaas uu ka koobnaa asxaabta aad iyo aad u mahadsantihiin daawashada videogan daawateen fadlan ha iloow inaad like dhahdo comment ka soo bixiso asxaabtaadan u share gareyso haddii videogan uu helo 500 oo like videoga ku xiga waxaan ka soo suubinaa sida 6 pack loo helo ama sida caloosha loo jaro aad iyo aad u mahadsantihiin waxaan noo balanaa videogan ku xigo mahadsanidin dhamaantiin